General Abdi Fattah al-Sisi madaxweynaha dalka Masar maanta waxa uu qaaday tallaabooyin hor leh oo cadaadis ku noqonaya dawladda Ethiopia. Galaangalkii siyaasadda amuraha dibadda ee gobolka ayuu wali sii wadaa isagoo oo maanta la hadlay madaxweyne saameyn leh isla markaana kala hadlay qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliya. Masar waxa ay qorsheynaysaa in 10,000 oo askari maalmaha soo socda ay ka soo dejiso magaalada Muqdisho isla markaana qayb ay ka noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Sidoo kale 5,000 oo kale oo ciidamadaasi ka mid ah ayaa noqon doona kuwa istiraatiijistayaal ah oo tababar siin doona ciidamada dawladda Soomaaliya. Tani waxay saameynaysaa amniga qowmiga ee Ethiopia. Madaxweynaha dalka Masar General Abdi Fattah al-Sisi waa nin rug cadda ah oo in badan siyaasadda caalamka ku soo jiray isagoo dhinaca militariga ka yimid aadna ugu xiran wadamada reer galbeedka. Waxa uu fahmayaa isbedelada juqraafi siyaasadeed ee caalamka ka dhacaya isaga oo la taliyaal sarsare oo cabqariyiin haysta ayuu markan waxa uu qaaday tallaabo weyn oo saameyn ku yeelanaysa isbedelka juqraafi siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika. waxa uu maanta taleefanka kula hadlay dhigiisa waddanka Uganda Yoweri Museveni. labada dhinac waxay ka wada hadleen Soomaaliya madaxbannaanida gobolkan ee Soomaalida iyo waliba faragelinta ku iman karaysa dalka. labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqay in iyaga oo iskaashanaya uu yahay waajib muqaddasa oo saaran ilaalinta madaxbannaanida Soomaaliya. labadan dal waxay hadda bannaanka keeneen aragti ka dhana dawladda Ethiopia. Abdi Fattah al-Sisi maalmihii la soo dhaafay waxa uu si aad taleefanka kula hadlayay madaxda kala duwan ee caalamka tan gobolka iyo sidoo kale kuwa Geeska Afrika. waxa ugu weyn oo kala hadlayana waa ilaalinta wadajirka iyo madaxbannaanida Soomaaliya. arrinta maanta ka dhacday qadka taleefanka ee labadan hogaamiye u dhaxaysa ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in khilaafkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay Ethiopia la soo afjaray. laakiin marka aad fiiriso tallaabooyinka soconaya dhaqdhaqaaqyada madaxda caalamku ay sameynayaan muhiimadda gobolka Geeska Afrika uu leeyahay iyo waliba isbedelada xooggan ee maalmaha soo socda la filayo inay dhacaan wali waxay u muuqataa khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya in xalkooda ama xalka la gaaray uusan ahayn mid sidaa u sii ridan. haddaba dawladda Masar waxay xilligan galaangal sameynaysaa iyadoo maalmaha soo socda la filayo in 10,000 oo askari sida qorshuhu yahay ay soo gaarsiiso Soomaaliya. 5,000 oo ka mid ah askartaasi howlgalka midowga Afrika ay ka shaqeyn doonaan. 5 kalena waxa ay ka howlgali doonaan meelo gaar ah oo loo cayimay iyagoo Soomaaliya ka saacidi doona tababarada ciidamada fahansiinta istiraatiijiyada dagaalka kala dhaxeeya argagixisada Soomaaliya iyo waliba Soomaaliya sida uu noqon lahaa dal isku filan oo ciidamadiisa iyo amnigiisa ilaashta. laakiin dhinaca kale marka laga fiiriyo ajandayaal kale oo qarsoon ayaa daba socda. dawladda Masar dagaalo ayaa kala dhaxeeya dalka Ethiopia. arrintanna waxay salka ku haysaa biyaha wabiga Nile iyo Ethiopia in laga ilaaliyo in badda cas ay lugaha soo geliso iyadoo Soomaaliya sii maraysa isla markaana badda cas u sii gudbaysa. sababta Ethiopia badda cas looga ilaalinayo ee Masar ay halista ugu aragtay waxay tahay in Ethiopia oo tagi karaysa janaalka Suez oo dhaqaalaha dalka Masar saameyn weyn ku yeelan karo. haddii ay taasi dhacdo waa dhibaatooyin kale oo weyn oo xukuumadda Qaahira ay wajahayso. iyadoo taa laga duulayo Abdi Fattah al-Sisi dadaalada ugu badan ayuu ku bixinayaa sidii Geeska Afrika uu guulo waaweyn uga soo hoyn lahaa, taasi oo dhabarjab ku noqon karaysa xukuumadda uu hogaamiye rajiimka Addis Ababa fadhiya ee Abiy Ahmed oo hadda siyaasad isdhuldhiga oo qabow oo diblomaasiyadeed ciyaaraya. laakiin isbedelada oo dhan iyo jihaynta meesha ay ka iman karayaan waa go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya qaadato. laakiin ku soo beeritaanka Uganda ee dhinaca Masar ayaa waxa ay tahay xaalad kale oo xasaasi ah. Uganda waxay ka mid tahay dalalka saameynta ku leh Soomaaliya oo ciidamadeeda ayaa dalkan ka howlgalaya laga soo bilaabo sanadkii 2007 xilligaasi oo howlgalkii ugu horeeyay ee midowga Afrika ee loogu waqlalay AMISOM uu dalkan soo gaaray. hase yeeshee waxa la eegi doonaa isbedeladan sida dawladda Ethiopia ay uga jawaabto. marka labadan dal laga soo tago faragelinta kale ee gobolka ayaa ah mid saameynteeda leh oo dalalka la yiraahdo Faransiiska, Turkiga iyo Masar ayaa sidoo kale hardankooda imika u muuqanaya inuu aad u sii xoogaysanayo.